rukuucda marka laga soo istaago oo lagu xasili waayo. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. أبا هريرة الله الرالية كنقضي وحا رسول كان صلى الله عليه وسلم وكورين يا إن رسول كان يري ركوع إلا أنت أتكو حسيليسو كر أسوقات إلا أنت أتكو حسيليسو. إلا قد قابك الركوع ذا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. waxaa laga soo warinayaa ummulmu'miniina Caaisha alla raaliya ka noqday iyada iyo aabaheedii waxa uu ahaa rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam marka uu rukuucayo mid aan hoos u foorarin madaxiisa korna aan u soo qaadin, laakiin waxa uu ahaa mid u dhaxeeyay arrinka. in la duuduubo marada xilliga salaada. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. عبد الله بن عباس الله الرالية كنقضي إساقي آبيه waxa uu yiri rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam waxa la amray inaan ku sujuudo 7 xubnood isla markaana inaanan duuduubin marada ama timaha. in lagu tukado dhar aan asturayn garbaha ruuxa labka ah. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. waxaa laga soo warinayaa saxaabiga Abu Hurayra alla raaliya ka noqday in uu yiri rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri midkiina yaanu ku tuganin mara kaliya isagoon garbihiisa aanay wax saarnayn. in salaada lagu tukado meel aanay munaasib ku ahayn sida meel laga buuqayo ama sawirayaalaan. عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. أنس ابن مالك الله الرالية كنقضي وحا ويري أوريدي رسولك صلى الله عليه وسلم عائشة وحا أي لهيدا سوركو حدنيهين oo u sugnaa gurigeeda waxaana uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam ku yiri iga leexidaa maxaa yeelay kama suulayaan sawirada ku xadhani inay iga mashquuliyaan inta aan salaada ku guda jiro. in la hormaro qofka salaada ku jira. عن أبي جهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر أحد رواة الحديث: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وحال قورين يا أبا جهيم على الرالية كنقضي إن أويري
nebigeenna sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi haddii uu ogaan lahaa qofka salaada hormaraya waxa uu mutaysanayo waxa uga khayr badnaan lahaa in uu 40 istaago inta uu hormari lahaa salaada. abunadar oo ka mida raggii xadiiskan soo wariyey ayaa waxa uu leeyahay ma garanayno 40 kan uu sheegay rasuulkeenna ma 40 maalmoodba ma 40 biloodba mise waa 40 sano. walaalkayga muslimka ahow qodobka rasuulkeenna inoo sheegay waa mid xaqiiqa oo ay dad badani ay hawl yaraysteen xilli rasuulkeenna goodi adag ka dhigay in qofka salaada hormara uu yahay shaydaan isla markaana uu mutaysanaya ciqaab in uu istaago 40. haddaba walaalkayga maqlaya muuqaalkan waa ay kugu oogan tahay xujadii si degdeg ah uga taxadir maanta ka bacdi in aad salaad qof tukanaya hormartid. in la buuxin waayo meelaha bannaan ee safka isla markaana la dhammaystiri waayo. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. waxaa laga warinayaa saxaabiga jaabir ibnu samura alla raaliya ka noqday waxa uu yidhi rasuulkeenna sallallahu calayhi wasallam miyaad safka u sintaan siday malaa'igtu u simaan markay ilaahay hor taagan yihiin? waxaannu ku odhannay oo rasuul allow sidee ayay safka u simaan malaa'igtu markay allo hor taagan yihiin? waxa uu yidhi waxa ay buuxiyaan oo ay dhammaystiraan safafka hore waanay simaan. in faraha lugaha kor looga qaado dhulka xilliga sujuudda. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. waxaa laga warinayaa cabdullaahi ibnu cabbaas alla raaliya ka noqday isaga iyo aabbihii waxa uu yidhi xabiibkeenna muxamed sallallahu calayhi wasallam waxa la i amray in aan ku sujuudo 7 xubnood fooda wejiga isagoo tilmaamay ilaa sanka 2 baabacood ee gacmaha 2 jilib iyo faraha lugaha. in gacmaha kor loo qaado marka sujuudda lagu sii daadegayo. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. waxaa laga soo warinayaa cabdullaahi ibnu cumar alla raaliya ka noqday isaga iyo aabbihii waxa uu yidhi waxa aan ka arkay rasuulkeenna sallallahu calayhi wasallam isagoo ku bilaabanaya salaada takbiirta salaada lagu xidho waxaana uu kor u qaadi jiray 2 gacmood marka uu takbiiranayo isagoo la simi jiray garbihiisa isla markaana marka uu takbiirta rukuucda uu gelayo sidaas oo kale ayuu samayn jiray marka uu yidhaahdo samica allaahu liman xamida gacmihiisa ayuu la simi jiray garbihiisa markaasuu odhan jiray
rabbanaa walaka alxamdu rabbigayow adiga ayay ku sugnaatay mahad oo dhan gacmaha kor umuu qaadi jirin marka uu sii sujuudayo iyo marka uu sujuudda ka soo kacaba in la fidin waayo baabacooyinka gacmaha xilliga sujuudda عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين waxaa laga warinaya cabdullaahi ibnu cabbaas alla raaliya ka noqdee isaga iyo aabbihiiye waxa uu yidhi rasuulka allah sala allahu calayhi wasalam waxaa lay amray inaan ku sujuudo 7 xubnood foodda wejiga isagoo tilmaamay ilaa sanka 2 baabacood ee gacmaha 2 jilib iyo faraha lugaha in la dhaqdhaqaajin waayey 2 dibnood xilliga la akhrinayo qur-aanka iyo digriga salaada عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويطيل القراءة في الظهر ويحرك شفتيه waxaa laga soo warinayaa saxaabiga sayd ibnu saabit alla raaliya ka noqdee in uu yidhi waxa uu nebigeennu sala allahu calayhi wasalam ahaa mid akhriya oo dheereeya akhrinta qur-aanka salaada duhur waxaana uu dhaqdhaqaajin jiray dibnihiisa safka oo la simi waayo isla markaana qalqallooca laga saari waayo عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم waxaa laga soo warinayaa saxaabiga nucmaan ibnu abi bashiir alla raaliya ka noqdee in uu yidhi nebigeenna sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi waydun simi safafkiinna ama waxa uu ilaahay cadaawad kala dhex dhigi doonaa wejiyadiinna in lugaha la kala fidiyo oo badhida la saaro dhulka عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال حاكيا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى waxaa laga warinayaa saxaabiga xumayda ibnu saacidiyi alla raaliya ka noqdee isagoo ka sheekeynaya qaabkii nebigeennu u tukan jiray ayaa waxa uu yidhi marka uu ka soo kaco nebigu sujuudda waxa uu ahaa mid ku fadhiista lugtiisa bidix waxaana uu sidoo kale uu taagi jiray lugtiisa midig daawadayaal waxaa rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam inoogu sugan kudayasho fiican waa in aynu maanta ka bacdi aynu ilaalinaa salaaddeenna maadaama ay salaaddeennu ay tahay waxa ugu horreeya ee addoonka maalinta qiyaamaha loogu hor xisaabin doono